Magacaygu waa John. Maanta waxaan ila wadaagi doonaa sheeko cabsi ah oo igu dhacday. Aniga iyo saaxiibkay Eric waxaan ahay saaxiibo aad isugu wanaagsan. Mararka qaar habeenkii ayaan soo wada jeedi jirnay. Mararka qaar waxaan aadi jirnay gurigeyga. Mararka qaarna waxaan aadi jirnay gurigiisa. Inta ugu badan habeenkii waxaan daawan jirnay telefishin. Mararka qaar waxaan dibadda u bixi jirnay anagoo wadana gaadhigeyga. Maalin ayaa waxaan tagay guriga Eric. Waxaan go'aansanay in aan dibadda u baxno anagoo wadana gaadhigeyga habeenkii. Eric ayaa wuxuu na mariyay waddo cusub oo aan weli marin. Markii aan cabaar soconay waxaan aragnay gabadh noo gacan haadinaysa. Waxa ay gacanta ku haysatay cunug yar. Cunugii yar wuxuu ekaa mid dhintay. Waxa uu ku daboolaa maro. Waxaan Eric u sheegay inuu joojiyo gaadhiga, laga yaabaa inuu u baahan tahay caawimo. Markii aan u joojinay gaadhigii, waxay noo sheegtay inuu ilmaheedu la ildaran xanuun oo ay qasab tahay inay geyso hospitaalka. Waxaan u sheegnay inay na soo raacdo oo aan geyneyno hospitaalka. Isla markiiba waxay soo fuushay gaadhigii, waxayna fadhiisatay qaybta gadaal ee gaadhiga. Waxay ekeyd qof ay wax ka khaldan yihiin. Eric ayaa wuxuu kaxeeyay gaadhigii si dhaqso ah si uu uga gaarsiiyo hospitaalka. Wuxuu ahaa hospitaalku mid aad nooga fog. Markii aan cabaar soconay, waxaan maqlay dhawaaq la yaab leh oo ka soo yeedhaya qaybta gadaal ee gaadhiga. Waxaan eegay muraayadda dambe si aan u arko waxa dib ka dhacaya. Weligay ma maqlin inaan arki doono waxyaalahan oo kale. Naag tiro ilmaheeda googoynaysa oo hilibkiina cunaysa, afkeedii oo dhiig ka buuxo, indhaheedii oo casaadeen. Isla markiiba naxdin ayaan barafoobay. Waxa wax qariib oo aan weligay arag. Waxaan u sheegay saaxiibkay si uu eego muraayadda gadaal. Markii uu arkay, isaguna wuu cabsaday. Waxa uu isla markiiba joojiyay gaadhigii. Waxaan eegnay xagga dambe ee gaadhiga cid saaran, waana weynay. Waxaan ka soo degnay gaadhigii si aan u eegno hareeraha cid joogta. Ma jirin wax calaamado ay ka tagtay, kaliya lafa iyo dhiig ayaan ka aragnay qaybta gadaal ee gaadhiga. Wadnaha ayaa garaacayay. Eric sidoo kale cabsi darteed ayaan markiiba si dhaqso ah ugu soo laabanay guriga. Maalinkaas kadib, weligay ma aan kaxaysan habeenkii waqti dambe gaadhi.